يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى ninku noocu doonaya ha ahaadee isagu ma qadaasad buu leeyahay warkiisu waa dhag uun miyaa maya isagana waa la dooranaya waa qof bani aadam oo iyadoo kala marka iyadana caruurteedu waxay hiilimaad uga baahan yihiin markay nin guursanayso marka intay silci lahayd ay darxumoon lahayd ee eedaadi lahayd darka dambena afka goosan lahayd waa inay oday wanaagsan xulataa oo aanay qaadin uun guur iyo jacaylkii iyo hamada ay dumar u qabaan rag waa inaanay taasi laab qaadine waa inay caga dhigataa ay u fiirsataa oo ciddii kalena cashara ay ku qaadata marka arrimaha loo eegaya ninka marka la xulanayona nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sida marar badan maqasheen waa diintii akhlaaqda idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuhu ilaa tafcaluu takun fi lardi fitnatun wa fasaad markuu idinka soo doona inanta qof diin iyo akhlaaq le u guuriya si aan balaaya u dhicin marka iyadana waa diin iyo akhlaaq isagana waa diin iyo akhlaaq gobonnimadu labadaasay ku jirtaa qof akhlaaq wanaagsan oo diinna helay labadaba waa gurigaa quruxda badane structurekiisana ama dhismihiisuna wanaagsan yahay subqigiisa iyo rinjiga lagu cidaaday ee lagu hagaajiyeyna uu qurux badan yahay ee dhalaalkaala weeye hadduu qofku akhlaaq xun yahay diintu waa sibqat allah diintu way qurqurxinaysaa laakiin akhlaaqdiisii dhabta ahayd meesha kama saarayso haddii uu akhlaaq wanaagsan laakiin aanu diin lahaynna dhacdhac laga waayi maayo ama waxaaba laga yaabaa qof kaala inuu noqdo nasiixadaasi aad bay muhiim u tahay dadkuna maanta waynu ognaho wax kalaa la isku doortaa waxyaabo kale ayaa la isku doortaa mana sii raagaan runtii arrintan waxaa islaamku u dhiirigelinayaa waa shay jeclaysiinaya ummadda diinta dad badan baa marka ay ogaadaan qofka waxa loogu xilanayaa inuu yahay diintiisa hadday ragga yihiin iyo hadday dumarka yihiinba qofku diintiisu hagaajisanayaa wuxuu leeyahay kol haddaanad gabadh kale helaynin oo mujtamac aanad qof wanaagsan ka helaynin adigu wanaagsanow buu qofku odhanaya marka dhaqankiisu wanaajinaya sidee loo guursan karo oo aan loo odhanin waa dawdare ha iska tago inantiina waa xijaabanaysaa way cibaadaysanaysaa akhlaaqdeedii bay ilaalinaysaa way xushoonaysaa waayo waxay ogtahay inay guur beelayso marka waa arrin islaamku uu ku dhiirigelinaya jeclaysiinta diinta أجمل متاع اهدنا يا رب تقوى تشترى لما تباع يا عمري اللي راحت أحلامه إن كان ما ضمت يمينك